ninka maanta yiri yaan laga cafiyin ummadda Soomaaliyeed deynta Soomaaliyay horta inuu cadowgiina koowaad yahay ogaada xilalkii uu ka soo qabtay dawladda federaalkana haddii xildhibaan ahayd iyo haddii wasiir ahaydna inuu hagardaamo kula dhex jiray ogaada inuu maanta isu sii dhameeyey oo qof aaminayaa jirin xataa beesha caalamku aanay aaminayn xataa Soomaalidu aanay aaminayn horta ogaada wax badan baan idiin sheegayo waxaan idinku yidhi Siciid Cabdulaahi Deni waa ciil qabaa dadku waa rumaysan waayeen bal caawa hadduu yidhi yaan Soomaali deynta laga cafiyin wixii aad ku rumaysan lahaydeen inuu cadowga Soomaaliyeed yahay wuu idiin sheegaye dib maxaad ka yeeli doontaan qodobkaana intaasaan ku dhaafay aqoon dar dowladnimo iyo jahli baa jira waxaa ku biiray xasad waxaa ku biiray qabiil waxaa ku biiray qof nacayb dalka waxaa ka jirta dowlad Soomaaliyeed waa legitimate caalamku maamul goboleed ma yaqaan caalamku Siciid Deni ma yaqaan caalamku regional administration ma yaqaan caalamku dowlad buu yaqaan habeen hore waxaan idhi dadka intii xumayd baa badatay waxayna qarisay intii wanaagsanayd war ninkaasu miyaanu nin xun ahayn ninka yidhi yaan deyn laga cafiyo Soomaali miyaanu xaasid ahayn ninka yidhi yaan deyn laga cafiyo Soomaali miyaanu cadow ahayn ninka yidhi yaan laga cafiyin deyn Soomaali miyaanu isagu iscaayin miyaan isagu waxa uu yahay ina tusin waxa calooshiisii ku jira waa aragnay waxa aqligiisii ku jira waa aragnay waxa afkiisa ka soo baxayna waa maqalay wuxuu qoray oo saxiixayna waa aragnay maxaad ku tilmaami lahaydeen berrina waxa laga yaabaa intuu koor idin soo qaato inuu idin yiraahdo wax siiya waxa aad Siciid Deni ku sheegi lahayd Soomaaliya idinkaan idin dhaafay qodobkaana intaasaan ku dhaafaya haggoodaadu maansadaan lahaa ninkii galayba eedowye waagii beryaba mucaaradku waxay ku hadlaan wax dowladda u dana waagii beryaba waxay qoraan wax dowladda u dana maxaa keenay macnawiyadda opposition kaanay aqoon waxa ay ku xun yihiin dowladdani wax daama baa la rabaa qofku inuu keeno dabadeedna shacabku kala doorto laakiin nin markuu hadlo iyo markuu warqad qoro intuba ay u noqonayso favor dowladdan waxay anigu mucaarad kuma tilmaami karo
waxaan ku tilmaami karaa qof aan Soomaali rabin. waxaan ku tilmaami karaa anaani waxaan ku tilmaami karaa wax bay yahay. qodobkaana intaasaan ku dhaafaya. reer Puntland dadka deynta laga cafiyayay ka mid yihiin. deynta laga cafiyi maayo Farmaajo iyo Khayre. deynta waxaa laga cafiyayaa dalka iyo dadka Soomaaliyeed. dee reer Puntland waad maqlaysaane jawaab ka bixiya. haddaydnaan ka bixinayna dee waad ku raacsan tihiin.